السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalaheyga maanta waxaan rabaa inaan kariyo malayga saa u jeedaan. waxaa kala ii yaalo bataati aan zacfaraan kusoo qasay iyo plain yogurt waaye caano garoor hadda u taqaanaan. xawaajiyadana waxaa waaye xawaajiyadii aan ugu talagalay inaan u isticmaalo bariiska iyo maraqa iyo malayga insha Allah biidhnillah. kismaayo xawaaji wax walbo saxankaas saaran everything aan isticmaalayo dhan meeshaas uu igu wada jiraa. adiga intaas hadaa qabin waa isticmaali kartaa waxyaalo kale. meeshaan waxaa igu jira basbaas, zanjabiil, kabsar iyo toon, liin, yaanyo iyo caleentaas. af Soomaali ma kasay wax lagu dhahayo laakiin hunguriga waa carfiyaa maasha Allah waa ujeedaan. meeshaan waxaa ii yaalo kismaayo masala. kismaayo masala waxaan rabaa inaan ku isticmaalo malayga hadda aan rabo inaan sameeyo. malaygan magaciisa waxaa la dhahaa yumbi. waa macaan badan yahay malaayada oo yacni Soomaali hadaan nahay aan jecelnahay uu ka mid yahay. marka saliida markaan saartay horta koow malayga ma ku dubin. waxaan ka bilaabay basasha inaan basasha aan ku guduudsado ee noqoto yacni gold brown. saasaan rabaa ugu talagalay inuu kalarka ii noqdo. marka aan ka bixiyo aan dubo basasha aan diyaariyo markaas waxaan bilaabaa inaan ku sameysto aan ku dubto malayga insha Allah biidhnillah. marka basashan hadda ma isticmaalay asiga ugu dambeeyo marka waqti kale aan isticmaalay yacni hadda yacni waxaan karinayo ma ku daray ilaa aan koriska aan ka dhameeyo. hadda waxaan bilaabay malayga yumbiga inaan dubo. waa ujeedaan walaalaheyga malayga aad u macaan badan yahay. Soomaalideena dhan waa jecel yihiin wallahi. markaan geliyo snaapkeyga oo kale gabdhaha waa weydiiyaan maasha Allah. waa u tilmaamay meesha aan ka soo gato. haddana waxaa meesha iigu jiro 4 bakeeri oo bariis ah waaye. bariiska waa qasay waxaan qasay 1 saac oo ii qasnaa bariiska. waa ujeedaan inta xawaajidii aan ugu talagalay waa inaan bariiska cad ku kariyo. bariiska cad easy waaye markaa karinaysid laakiin bariiska kaligiis markaa biyo ku karinaysid waa laga fiican yahay. waxaa fiican inaad isticmaashid xawaajiyadan oo kale oo carfaya sida filfish oo kale iyo qarfaha iyo wixii lamid ah. marka bariiska uu karkaro insha Allah waa gaabina waa dhameena shaqadiisa because labada shaqo isku wada marna bariis aan karinaha marna waxaa waaye malayga dubaya. haddana waa kana malaygii waa ii soo diyaarsamay. hadda waxaan rabaa inaan bilaabo inaan kariyo maraqi. maraqa intaan koo horta aan bilaabin basasha iyo waxaan bilaabay bataatigii hadda aan kalarka kusoo qastay aan dubaya. waxaan u dubaya waxaa waaye hadhow markaan maraqa ku darsado ma iga jajabayo bataatiga. zacfaraankii oo adkeenayo iyo anigoo saliid kusoo dubay labadaba yacni wuu adkeeyaa bataatiga. marka maasha Allah kalarkana kalar aad u qurux badan waaye zacfaraanka aan isticmaalo mar walbo. marar badanna waa idin la sheer gareeyay. hadda waxaan ku shubanayaa basal yar leeyahay oo caadi ah. just waxaan rabaa basashaas inaan ku bilaabo maraqa kariskiisa inaan ku bilaabaan rabaa. maasha Allah hadda waxaan ku darsanayaa oo meesha ii yaalo hadaan idin la sheer gareeyay yaanyo wax kasto. marka horta koo yaanyadan ku shubto waa ujeedaan. yaanyadana waxaan rabaa inaan si tartiib ah u kariyo. saliid badanna ma iigu jiro waa ujeedin walaalaheyga. saliid badan ma ku soo shubanin. waxaan diidayaa hadhow inuu bariiska saliid yacni uu ku bato aan diidayaa marabi. markisto markaa karinaysid biryaniga waa saliid badan aan loo isticmaalaa laakiin nooca hadda ani aan karinayo saliid badan dhan ma ku jiro. xawaajiyadii oo kismaayo masala iyo kismaayo xawaash ka mid ah iyo wixii kale markaas aan usoo diyaariyo oo cusbana ku jiro everything aan ku shubto. adiga marka wax allaale wixii ku yaalo aad isticmaali kartaa. laazim ma aha waxa ani aan isticmaalo inaad isticmaashid. haddii mar uu ku yaalo kismaayo masala iyo kismaayo xawaaj aa ku dartid heel iyo qarfo iyo good to go. marka walaalaheyga waa ujeedin saliida waa ku yar yahay sida loo baahan yahay waa isaana la rabaa. ma la rabo hadhow saliida inuu kasoo dhex muuqdo maraqa kaas la diidaya. marka aan kalo aan arko inuu yacni yaanyadii ay bislaatay hadda insha Allah waxaan bilaabayaa inaan ku shubto basbaaskii iyo toontii iyo kabsartii wixii markaas aan meesha aan ku diyaarsaday insha Allah aan ka ahaan zanjabiisha hadhow aan isticmaalaa insha Allah. markaan horta waxaan aan isku dardaro aan si fiican yacni aan u dalaco kadib aan marka gadaalka aan kaga shubanaa. marka walaalahey waxaan idin dhihi lahaa kariska easy waaye. yaanyada hadda aan isticmaalayo yaanyo already karsan waaye mid ceeriin ma aha laakiin ani kanaan soo gataa kanaan isticmaalaa. kariskana waa ku celiyaa asaa yacni aan maraqa ku karsadaa amase suugada markaan wax karsanayo waana carfa. markaa karinaysiin maraqa saan oo kale mar walbo waxaa iska fiirisaa dabka high noqonin yacni dab zaaid kulul
ha isticmaalin always medium ha ku ahaado ama medium iyo high ha u dhaxeeyo dabka. waxaa loo baahan yahay inuu tartiib u karo loo baahan yahay. zanjabiisha haddaan kusoo shubto waa kuwa ujeedaan ma rabin hadaa inaan ku shubto maxaa markaa ad waxaan karinaysid sida biryaaniga noocan oo kale haddii aan mar hilbo dhexdiisa ku jirin zanjabiisha markasta waa loo dambeysaya yani markuu yani wax yar ka dhiman yahay oo kale. hadda waxaan ku shubanayaa bataatigii hadaa aan soo dubay waa ujeedaan bataatigan markaa aan ku shubayo that means maraqayga diyaar waaye. maraqa already waa karsan yahay bis waaye laakiin dabka ma daminaayay. markaan bataatigan aan ku shubo aan kisyar gadgadiyo because bataatigana waxaa weeye meesagooto waaye already aniga saliidaan kusoo dubay waa aragteen. meeshana waxaa ii yaalo plain yogurt caano garoor mid saa u taqaanaan. marka waxaan ku shubanayaa 6 qaando oo caano garooraan ku shubanayaa. haddaa rabtid wax badan waa ku shuban kartaa haddaa rabtid waa ka yareyn kartaa laakiin aniga size-ka hadda aan karinayo aan u qiyaasanayo 6 qaando waa igu filan yahay. marka haddaa 7 family tihiin 7 qofood oo ka kooban tihiin oo kale markaa karinaysid 6 qaando 7 qaando waa kugu filan yahay markaa isticmaalaysid yogurtka insha Allah. marka maraqa saan uu diyaar ku yahay that's it waa iska daboolaa. marka hadda waxaan insha Allah bilaabaa sidii aan bariiskii iyo maraqii iyo wixii aan diyaarin lahaa. waa kana hadda waxaan diyaarinayaa bariiskii. horta koo waxaa ku shubanaysaa maraq dhexda kaliya maraq ku shubanaysaa iyo geesaha ku shubaysaa. wax badanna ha ku shubin waxaa loo baahan yahay qiyaas wax yar leh loo baahan yahay. basashii hadaa aan dubayo waa ujeedaan waa kana basashii aan kor ugu shubayaa. hadda waxaan ku shubayaa bariiskii aan soo kariyay waaye oo biseel oo diyaar meeshan wax yeerin horta ma lahan everything ready waaye. يعني waxa waaye hadda waqtiga waxa la joogaa oo decorationka aan sameyn lahayd wixii aan isku keen lahayd aan qurxin lahayd ma sha Allah la soo gaaray. so that means wixii aan diyaarinayaa maraqii aan ku shubay basashii aan ku shubay hadda bariiskii aan kariyay oo ma sha Allah caariftiisa la yaabsan yahay guriga dhan maanta maxaa karinaysaa aan ku shubayaa saxanka ujeedaan ma sha Allah aad u carfaa bariiska hadda aan kariyay. marar badan waa idin la share gareeyay I don't know laakiin insha Allah su'aal hadaa qabtaan igu soo qora insha Allah waa idin yani mar labaad in kugu soo celinaa asigoo nooc kale u karinayo insha Allah meesha saa ka arki doontaan. maraqana markaa ku shubaysid saan idin sheegay wax badan ma loo baahno just qiyaas loo baahan yahay okay waay. haddii markaas aan ugu shubtid ku soo haro baaquliga ku shubaysaa geeskiisa dhigaysaa haddii uu markaas qof rabo uu ku darsan karaa. marka hadda markaa maraqaasaan ugu shubay waxaan kalaan ku shubanayaa basashii hadday hoos ku shubay haddana mar labaad aan waxaan ugu shubayaa kor. يعني basashan waxay macaan ka dhigtaa bariiska iyo maraqa oo biryaaniga. marka asigoo diyaarna waa jira asigoo oo adiga aad sameeysan marka aad sameeysanaysid uu ka caraf badan yahay marka asigoo diyaar soo gadanaysid. malaagi aan dubi waa kana insha Allah ukunaan soo karkariyay ukunta waa soo jarjaray waxaan rabaa inaan saxanka aan ku wareejiyo waa ujeedaan ma sha Allah. markaas haddana waxaan ku shubanayaa kabsar aan soo jarjaray waaye waa ujeedaan caarafaan ku dhahay meesha dhan carafa la fadhin laayay ilmeegu xilay maama ma sugi karna dhaqsana si raashinka marka walaalay waxa idin dhihi lahaa raashinki waa soo diyaariyay ma sha Allah aad ilmeegu jecel yihiin family waa jecel yihiin bariiskan so that means maanta aan karinayo waa idin share gareey walaalahayga waxaa idin dhihi lahaa idinkane insha Allah tijaabiya kariya hadaa su'aal qabtaan ila soo xiriira please ha iloobina share iyo like iyo subscribe insha Allah saa ku heshaan fiidiyaha kale soo socdo ku aragtaan marka insha Allah haddii aad su'aal qabtaan saa idin sheegina waa igu soo noqon kartaan waa i weydiin kartaan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalahayga aad u mahadsantihiin.